وما هدافها وانا قدسها وحيد عيابا لكيس عياها وطني قدبك العدول runtii hadalku gala kafuul biigu hayo uguma soo tala gelin si degdeg ah la igu sheegay hawshii aan hayeen dhulka dhigo waa imid kulley qoliyo campaign ku jiran oo nahayo meel kasta oo aan tagi karna waa tagaynaa golaha wakiilada waxaan maxamed cismaan baa magacayga la yiraahdaa waxaan u sharaxanahay golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ka sharaxanahay gobolka Nuuroodijeex kulley dad badan oo xildhibaanadii ugu horeysay ka hadashay rag badan oo aqoon-yahanno leh oo commissioner leh oo salaadiin lehna qodobkan ka hadal gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka aad baan ugu mahadnaqayaa faahfaahinta dheeraadka ay siiyeen hadalka badin maayo laba qodob ayaan jecelahay in aan taabto golahan aan u sharaxanahay waa gole sharci dejineed waxaan daraasad ku samayn doonaa aad u eegi doonaa qodobada keena marka koobaad muxuu ahaa naafada keena hadda dhowr qodob oo jira oo la og yahay baa jira oo booliyadu ka mid tahay dad badan oo ka mid ah ciyaalo badan oo ka mid ah booliyay la soo dhashaan iyagoo caafimaad qabay soo dhashaan booliya ku dhacda naafay noloshooda saa ku noqda nasiib wanaag wasaaradda caafimaadka iyo hay'adaha wasaaradda caafimaadka la shaqeeya in muddo ahba aad bay uga shaqeynayeen tallaalka booliyada aad baan u dardar gelin doonaa waxaan ku dadaali doonaa in aan ilmay Soomaaliland ka mid ahi aanu tallaal la'aan oo aanay booliyo ku dhicin oo aanu booliyo u naafoobin qodobada labaad ee aan ogahay ee keena naafada oo runtii in badan igu taagnaa in badan aan ka fikirayay in badan ay iga ahayd go'aan haddii ilaahay calfo ilaahay qadaro shacabka reer Soomaaliland ay codeeyaan idinaad ay codeysaan inaan wax ka qaban doono waxa ka mid ah shilalka gaadiidka ee nagu batay ee keena dhaawaca iyo naafada waddankan keena inaan wax badan ka qabto ayaan samayn doonaa waxaad moodaa shuruucdii waa inoo dejisan tahay in ka mid ah wadamariddu laakiin aanay cidi ku dhaqmin shalay gabiley baan ka soo socday shil baabuur baa ka dhacay dad baa ku dhintay dadna waa ku naafoobeen waa nasiib darro in aan hay'adihii dawladdu shuruucdii dhaqan gelinayn enforce garaynayn waxba ka qabanayn waxaan samayn doonaa shuruucda taalo waa dhaqan gelin doonaa qaar cusub oo shilalka wax ka qabta na waa keeni doonaa insha Allahu tacaala haddii la doorto waxaan sanadaha ugu horeeyaba ku dadaali doonaa inay ahmiyad in noqoto shuruucdaas say u iman lahaayeen oo shilalku yaraan lahaayeen oo dhaawaca iyo naafadu inoogu yaraan lahayd haddii Ilaahay yiraahdo dabcan baahiyada dadka naafadu waa kala duwan tahay qof raba crunchiskii rabaa jira iyo bahalladii lagu tukubayay qof raba gaadhigii iyo mootadii baa jira qof aan gurigaba ka soo kicin oo guriga in wax loogu qabta rabaa jira qof uun dhagihii naafo ka ah baa jira qof indhihii waa kala duwan yihiin baahiyahooga isku mid maaha baahiyaha mobility iyo socodka kaliya maaha ee lagu yar celceliyay ah halkay marayaan iyo halkay dabcan kuwaas waa ahmiyad gaar ay leeyihiin laakiin in baahiyaha kala duwan ee dadka naafada ahi la darso qolo walba halkeega loogu tago barjad dawladeed loo sameeyo qolo walba on qolo kaliya lagu intiinan halkan joogto lagu ekaane dad badan oo naafoon soo bixi karin oo guryahooda ka soo bixi karin ayaa jiro aan duruuftuba u saamaxayn inaad halkan ay yimaadaan oo ama gaari soo raacaan ama ay mooto soo raacaan ama si kale ay ku yimaadaan oo soo kici karin baa jira dadka laftooda in siyaasad dawladdu ka yeelato ayaa aan waligay aaminsanaa haddii Ilaahay calfaynan meesha imaadana aad baan uga shaqayn doonaa xeerar munaasib ku ah oo taabanaya dhinac wal oo iyo koox wal oo naafada ah taabanaya wax u taraya ayaan insha Allahu tacaala dejin doonaa budget ku munaasab ah oo ay u qalmaan hay'adan ay u qalanto hadda budget ba ma laha la ii sheegay oo waxa weeyaan budget hagaagsan ma lahan filaya budget ma laha hay'adani waxaan isku dayi doonaa sida waxaan anigu ku dadaali doonaa isku dayi maayo waxaan ballan qaadayaa inaan budget u sameeyo haddii Ilaahay yiraahdo haddii la doorto meesha budget dawladda ma sameeyo kullay waa iska waqti duhura
marar badan baan isu iman doonaa oo layga dambeeyaa baan filayaa khudbadaha dee waa barasho wanaagsan oo markii koobaadan shir idinkala soo qayb galo markii u dambeysay noqon mayso kulamo joogto ah oo aan xafiisyada ururka iman doono baahiyaha si faahfaahsan u ogaan doono xitaa tion la iiba dooran oo kambeynku iska socdo oo aan la gaadhin waqtigii lay dooranayay hay-adaha ay khusayso baahiyahoogu ayaan kala hawlgeli doonaa haddii ilaahay idhaahdo waad salaaman